magaca waxaa la yidhaahdaa cabdishiic alxaashi waxaan rabaa wax yar inaan caawa inta mikrofoonka anugu aan ku dhego aad baad umahadsantihiin inaad kasoo qayb gasheen xafladan loo qabanayo ugaas cabdiraxmaan ugaas maxamed oo beesha kanada daarood ay magacaabatay oo isku raacday waxaan dhihi karaa Soomaaliya oo dhan baa isku raacday hadda waxaan u gudagelaynaa programkii iyo barnaamijkan u nimid meesha waxaa nala jooga ugaas cabdiweli cali ugaaskana ugu daray maadaama isagu joogo oo hadda uu ugaaska mas-uul ka yahay anaa ugu daray laakiin shiikhu ka jecel yahay la yidhahdo sheekh cabdiweli cali marka asagaa wuxuun siin doonaa insha allahu tacaala biograph ama xoogaa information oo ku saabsan ugaaska hadda la doortay ugaas cabdiraxmaan taariikhdiisa asagaan siin doonaa insha allahu tacaala waxaan kusoo dhow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dhammaan bulshada meesha iskugu timid ee jaaliyadda Soomaaliyeed waa in salaamaya waana inay ka runtii in ka mahad celinaynaa kasoo qaybgalka nagala soo qayb gasheen ugaas cabdiraxmaan ugaas maxamed ugaas cali geesood aad baad ugu mahadsantihiin runtii marti sharaf badan baa joogta waqtiguna waa gaaban yahay aadna waa loo wada mashquulsan yahay waxaa la igu yeeray ugaaska iyo taariikhdiisa wax yar inaan ka soo koobo ugaas cabdiraxmaan runtii alwaalid waa aqoon-yahan saad horeyba runtii aad u dhagaysateen waxay kaga dugnayd saldanadihii runtii hore waxay kasoo jeedaa qoys diineed oo waxaa aabihii ahaa sheekh maxamed cali geesood oo ugaasna ahaa ugaas maxamed cali geesood oo Allah naxariiste oo runtii mufti ahaa geyga Soomaaliya aadna loo wada garanayay ayuu kasoo jeeday diintana ka qaatay aasaasna u ahayd ayna ahayd beeshaasi runtii waxa ay kusoo xulan jireen markii horeba xagga dhaqanka diinta ugaas cabdiraxmaan waxa uu heliya wuxuu ka baxay iskuulkii Cumar Samatar ilaa haddana jiro oo iskuul facweyn markii mudug la yiraahdo wuxuu kaloo ka qalin jabiyay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo kuliyadda dhaqaalaha uu ka baxay kabacdina Jarmalka ayuu wuxuu ka qaatay management and development waa nin Holland degan oo runtii halkaas muddo deganaa haddana bahashaas dhaqanka ah waa lagu khasbay oo runtii sida akhriyseen oo xafladda ka muuqatay iyo weynaynta iyo rabitaanku wuxuu ahaa xadiis waxaa jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabi ay ugaaska isku magac ahaayeen oo cabdiraxmaan la yiraahdo oo ku yiri imaarada ha weydiisanin dadka haddii adigu aad doonatid waa lagu wakiilanaya waxay ka dhigan tahay waa adigu dhagaha iska qabo laakiin haddii lagula soo doonto waa lagu kaalmaynaya marka ugaas cabdiraxmaan runtii shirkan idinku waxaa arkayseen dhaqankaana waxaa ka horeeyay shir beesha jirtay oo runtii ay muddo badan u fadhiday asagoo aan iska jirin oo iska fadhiyo surweelkiisa qabaan nabulku soo yiri marka sidaa darteed ayaa loogu dhagay ugaaska taariikhdiisu waa Cumar Samatar ku ka baxay jaamacadda ummadda ka bacdina Jarmalka haddana reer Holland buu ahaa dib u laabtay insha Allah tacaala ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu maaragtaa xilka u fududeeyo waa nin aqoon diineed iyo aqoon maadiba isku darsaday shahaadada heerka labaadna ka gaaray uu yaryahan isleeyahay dhaqan maantay markii loo fiiriyo weliba ku shaqaynta uu ku shaqeeyay aqoontiisa ilaa PhD buu u qalmaa marka runtii bishaaray u tahay hoggaanka dhaqanka nin saas oo kala maanta inuu ku soo biiro weliba xilliga lagu jiro oo aynu ka warqabno waa arkayseen qaabkay u dhacday oo barnaamijkaasi u suurtagalay oo Soomaaliya oo dhan uga soo qayb gashay kowna waxaa ka ahayd muwaafaqada haddii muwaafaqo la helo oo Soomaaliya oo dhan ilaahay muwaafaqo aynu heli lahayn isku meel baan u jeesan lahayn marka asagoo ugaas Soomaaliyeed oo dhan ah haddana beesha hadda ugaaska u noqday muwaafaqo ay ku doorteen darteed baa waxay bedeshay hamaamuuskii isinimada oo meesha ka dhacay oo arkayseen ummadda iskugu timid kow marka waxaa ka ahayd aqoonta iyo diinta iyo qoyska uu ka soo jeeday muwaafaqada beeshiisa oo ahayd iyo meesha uu ka dhacay caana shubka oo deegaan taariikhi ahayd runtii oo dadku la yaabay deegaan ka baxsan laamiga oo intaas oo ummada
haddana runtii martigelisay laakiin deegaan ahaan bay degmo ka tahay runtii ummaddii meesha iskugu timid markii la fiiriyo horumarka ay samaysay iyo bilicda ay ku tilmaansatay waana rajaynayaa hadday siyaasiyiin tahay iyo hadday dhaqan tahayba in lagu caanashubo oo gobol iyo wax ka sarreeyaba runtii way u qalantay afurna waxaan ku salaamayaa 14 boqolka iyo maskabka meesha hadduu ku fadhiyo hadduu isin yahay hadduu oday yahay shiikh hadduu yahay dumarka dhalinyarada dhammaantiin waa idin salaamay intii hadda ka soo qayb gashay oo odayaasha ahayd oo ajiibtay intii loo yeeray oo aan ajiibin kulli khayr allah siiyo halkan waxaanu hadda isugu nimid ugaaska inaanu duceyno sidaa uu sheegay muxuu ahaa ugaaska u sheegay waa la isku raacay odayaasha dhan baa isku raacay guda iyo bannaanba waa isku raacday in nin la duubo aan loo kala harin haddii waxaa la isku raaco oo dadku isku raacaanna waxaa ka yimaada maskabkii hadda ninkaas loo sameeyey sidaan hadda kolley dadka intaan cabdidheere moogiye cidiga weyn miyaa jirta intaan hadda la socdo ma malaynahayo xafladdaasoo kale nin hadda ummadda soomaaliyeed intay isugu timid la isku raacay asaga horta waxaan ugu ducaynayaa ugaaska 3 eexlaan gacanaan laabnayn iyo garaan eex lahayn iyo guddoonaan jilicsanayn allahana ku khayro sidaa loo doortay ummadda soomaaliyeed qofka markii isin laga dhigo oo isinka loo doorto waxaa weeye waxaa laga rabaa 3daas guddoonaan jilicsanayn garaan eexa lahayn iyo gacanaan laabnayn intaasna inuu leeyahay baan qabaa waqtigeediina hadda wuu yimid intaana waa ugu ducaynaynaa adinkana waxaan idinkugu mahadinayaa fadhiga aad nagala soo qayb gasheen iyo ajiibka aad ajiibteen iyo magaalada aan wada joogno ku soo dhowaada odayaashii magaaladana aad tihiin waxaan sii raacsanayaa nin baa la yidhi war maxaa joogtay 3 baa joogay soomaali oo dowlad ahayn oo waxba ahayn ayadoo isticmaar haysto iyo iyadoo dowladda haddana waxaan joogaa maanta iyadoo laleeyahay war xaggee laga habtaa war ma iscelinaa wari ahaa yiri yaa sameeya yiri walaal isceshano aan isceshano dadku haddii la isceshan waayo waa la lumaya hadda ninkaas qoys soomaaliya oo aan imaanin ama xataa kuwa isticmaalka ku jira oo isticmaalku naga haysto ama intanada kale reeraan imaan ma jiro waana la wada ajiibi haddaad naga ogolaataan mar labaad baan ku celinaynaa ismadoo dhan inaan gadooga isugu geyno oo aan ku heshiino oo soomaali ay sal u noqoto dirdigii loo dhigay SYL soomaali inay meel ka asaasato jigjigaa lagu asaasay inay meel ka asaasato oo lagu heshiiyo waa soo celinaynaa waana marti qaadaynaa waa fidanaynaa gobashaas ugaaskana waa gaarsiinaynaa marka waxaan ku ducaynayaa ilaahay sida la sheegay abaarahana ilaahay inuu dhibkooda naga saaro ummadda soomaaliyeed qulubteeda la isu soo celiyo dardaaran kuwa soomaali waa hal laba maaha aan dib u noqon hadalka waxaan kusoo dhammaynayaa raalli ahaada 100% waa dhigaynaa gobasha kale oo soomaaliyeed waa ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad soomaali in la helo oo xal loo helo
oo waxa maanta taagan wax ka wanaagsan la helo waan rajaynayaa arrinkaas haddaad naga qaadataan ugaaska waan gaarsiinaynaa gogosha meel bay ka unkantahay waxay ka unkantaa Soomaaliya salka waxa uu dhigay ismo iyo odayaal iyo waxgarad laba waaye laakiin waa maskaxdii caqliga soo noqotaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munaasabadan waxa weeye inaanu u ducayno una hadlayno ugaas cabdiraxmaan oo xil weyn loo magacaabay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa horta ilaahay inuu xilka u fududeeyo ku asturo waana u hambalyaynaynaa ilaahay idinkiisa xilligan sida la sheegay isanka la magacaabay deegaanka laga magacaabay waa nin aqoon diiniyeed iyo mid maada yeeshay waqti dhib badan oo ummadda Soomaaliyeed ugaas isan sidaas u baahan tahay buu ku soo aaday ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dhibaatooyinka Soomaali ku habsaday xalkeeda inuu qayb weyn ka qaado sida loogu doortay inuu u qalmo oo xilkaas waxaa muujinaya sida ummadda Soomaaliyeed meel joogaanba looga qayb galo oo loogu duceeyay annaguna ducadaas aanu ku taageeraynaa waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu xilka u fududeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan u malaynayaa anugu haddee ugaasna ma ihi suldaanna ma ihi garaadna ma ihi malaanna ma ihi askarahaasu baa lagu sheegayo askarihiina hadda wayba baabeeno meel hadda saaka laga dhaado waa la garan laaya waayo ninka askarigu wuxuu ku fiican yahay inuu shaqeeyo waddanka markii uu ritaayar noqdana calankii oo iyo askartii oo hawshiisii oo sii socota kuwii weynit hor fadhiyo deetana loo yimaado layaado waxa maxaa ka yeelna ayuu wax walba ku fiicaya wixii way qawdeen intaas waa si kaftan waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa horta odayaasha caawa xafladda qiimaha leh quruxda badan waqtigoodii iyo maalkoodii oo geliya dadkaas ugu yeedhay aad bay u baadsan yihiin runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan bay qabteen marka way baadsan yihiin waxaa kaloo baatay dadkiina soo ajiibaya iyaguna duruufahoodii iyo waqtigii ay darahooda goonida qabsan lahaayeen soo ajiibay inta haddii laga gudbo ugaas cabdiraxmaan ugaas maxamed waxaan u malaynayaa markii la caleemo saarayay soomaalidii oo dhan faamiliyadoodii ama waaxadoodii ayaa isugu yimi annaga garaad kulmiye garaad gulwaal baa wakiil naga ahaayoo ugu tegey hambalyadiina wuu geeyey qolo walbana meeshii ay ahayd bay iyaduna ka soo dagaalka bayada lagu caleemo saaray goldogob waa magaalo Soomaaliyeed wey waa magaalo ehludiin waa magaalo dad nadiif oo Soomaali ay degan yihiin كل هذا أنا أدو أمانو بايس سبعة ولا ربع ويباني اللي هي أدو سيدران ماي مركورة وحن مالعني يا باشا كوش الدكتي لو ماموس اليوم وجاز كان مسوق وجاز عبد الرحمن وجاز محمد وجاز علي جيسود ولو تضبط كورة لو على مسائل المجال الكتب الدول كمدو دولة الصومالية آليات بان وفر أحسن هاي إننا كسوق الله فرحتى أقول المدة الصومالية ضربا السوريتي وجاز عبد الرحمن وجاز كلية مها وجاز بهل تنادى وجاز الصوماليات ولبا سيدا باكر في سلقش وجاز عبد الولي أنا شيء عبد الولي ونوش شيء عبد الشيء له وسيفة فهي وواحد بدأ وجاز وخديسي من إنه لهاي وجاز أقون دينيد يمد مالية أنت ولا أنت وحاول القرب تشوف هذا عرضي البحنمو له وهذا كله ودمده هو ما في عرض بدن الدنكا magacaygu waa xasan axmed maxamed xasan tukade marka hore waxaan ilaahay u mahad celinaynaa dhammaantayna tan labaad waxaan halkan iskugu nimid waxaan u malaynayaa waa hambalyo iyo recognition uwaaska cusub uwaas cabdiraxmaan uwaas maxamed oo halkan caawa loogu duceynayo looguna hambalyaynayo shaqada culus ee loo doortayna ilaahay ku garab galo markaan dhageysanaynay taariikhdiisa soo gaabiyey waxaa ii muuqatay inuu yahay nin ahlu diin ah sidoo kale nin aqoon-yahan ah
isla markaana ah nin oo dibadda wax ku bartay wax ka garanaya adduunka sidoo u socdo iyo xaaladaha maanta la marayo waxaan isleeyahay waa qofkii ugu mudnaa loo doorto inuu ugaas ka noqdo reerkaasi waana ku mahadsan yahay anigana waxaan ku kaalmaynaynaa halkan duco iyo hambalyo waan salaamay kulligiin waxaan aad iyo aad aan yacni ugu faraxsanahay ana leeyahay waa mahadsantihiin qabanqaabiyayaashii soo qabanqaabiyey xafladan qiimaha badan ee udubdhigga u ah dhaqanka iyo diinta Soomaaliya ee aadka u quruxda badan ee weligeed aan ka dhicin deegaanadan aan degannahay ee dibadda ee ah intaqaanaa maxaa la yidhaahdaa wax lagu farxo isku imaadkan ayaa wuxuu yahay isku imaad qiimo badan anigu waxay ii taqaanaan injineer murux siyaasi aqoonyahan waxgarad odayaasha magaalada guri isin baan ka imid meeshana waxaan ku taaganahay maantay isin koofiyadda cimaamada waxaan u soo qaatay waxaa lagu barto maanta inaad isin tahay laakiin waxaa aad iyo aad iigu farxad badan in wakiilka ugaaska ee magaaladan Edmonton Cabdiwali oo nin mutadayina aqoonyahana diintana aad ugu fiican iyo dhaqanka uu yahay saaxiibkay sababtu waxa weeye isimadu waxaa lagu soo xulaa aqoon iyo diin isinka maantay tanade loo doortay ee mataqaanaa maxaa la yidhaahdaa aan arrintiisa u fadhino waana mutadayin oo nin diin ku fiican weeye oo leh mataqaanaa maxaa la yidhaahdaa aan ku leeyahay qiimo fara badan oo dhinaca diinta ah dhaqankana ka yimid guri dhaqan ee guri isin marka waxaan leenahay ilaahay ha waafajiyo tawfiiqda iyo shaqada aadka u faraha badan ee loo doortay oo ah mataqaanaa badbaadinta udubdhigga ka shaqaynta nabadgelyada iyo mataqaanaa maxaa la yidhahdaa sidii Soomaali laysugu keeni lahaa oo u walaaloobi wahaayeen arrintaasoo aad iyo aad mataqaanaa maxaa la yidhahdaa u culus ayaa khaaliq alkownkana abuurtay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay u fududeeyo u sahlo aan u ducayno kulligeen إلهي ومحمد سبحانه وتعالى سوكي كان ميشان عاوة نوضد إهلا مسلمين يضر رمضان نسول ويهي هذا عافمات قواه لين عافمات كايلو سياديو وحافر حد كلاء نتكم إذا تيرر كان نبضع وصومالي كنت أغنتهي السمالة الصومالية تيرر كاي كنت أغنتهي نبضع صوماليات وكغنك إن أنا عاوة مركي سووني ميد inaan hambaliyo iyo duco u dirayno xubin ka mid ah dadkaas dhaqanka oo waxay Soomaaliya ka soo qabteen Ilaahay uu og yahay Ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu ku asturo xilkaas Ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa ta'ala cimri iyo cibaado inuu isugu daro iyo muwaafaqo dadku dhageystaan qolada caawa halkan joogto tanadada ninka odaga mas'uuliyad weyn baa la saaray dadka halkan joogo caawa xafladan soo qaban qaadiyay iyo inta magaalada joogtana mas'uuliyadka qofkaas idinka saaran yahay waxa xoog kamid ah inayna waxa aan kamid ah oo waajib ah inaad qoondada maalinkeed waxa la isku raacay in ugaaska aan looga harin meeshaas oo shaqada loo dhiibay aan faraha looga qaadin oo aan sidii gaalada la dhihin idhab anta wa rabbuka faqaatila innaha huna qaaciduun orday idinku dagaalama anagu halkaan idinku sii sugaynaaye waxaan rabaa inaad qoondadiina qaadataan reer Edmonton intiina meeshaan joogto odayaasha iyo hooyooyinka iyo gabdhaha inaad sanadkii ugu talagashaan waxaad ugu talagashaan inuu ugaasku ku shaqeeyo marka gobolada kalena ay idinkaga daydaan tolka meesha isugu yimid iyo su'aalada meesha isugu timid oo nooc walba leh
وإن السلام هي وعليكم السلام هي سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أسكتب وحنوما علينا هي تلك أما تشفده هل كان لو يرتي وحفلة aadka u qiimaha badan oo aadka u quruxsan noo samaysay iyo munaasabada wanaagsan oo ay noo diyaarisay waan uga mahadcelinaynaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa jasaakumullahu khayran baan leeyahay taasoo waa halkaas waxa kaloo iigu xiga saad noo sheegteen waxaad tidhaahdeen ugaaska hadda la doortay ugaas cabdiraxmaan wakti dheer iyo munaaqasho badan iyo katashi badan bacdigeed baa waxaan soo xulnay ugaas cabdiraxmaan baad tidhaahdeen adinkoo noo sheegay akhlaaqaad badan oo fiican oo ay diinu ka mid tahay inuu akhlaaq diimeed oo fiican leeyahay inuu waayo aragnimo aqooneed leeyahay inuu leeyahay akhlaaq fiican ayaad noo sheegteen inaad ku doorateen. Congratulations, Ugas Abdurrahman. Inshallah khair. We're going to make lots of dua for you, inshallah, and we can't wait to see all the great things that you do, inshallah. waxaan hambalyo iyo bogaadin iyo farxad iyo isugu dareynaa ugaaskeena ugaas cabdiraxmaan ugaas maxamed cali hambalyo ugaas xilka lagu igmaday ilaahay ha kaaga dhigo midkii anaga dhan aan u anfacday Soomaaliya oo dhan hambalyo zahro welcome. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. anigoo ah Zahra ama Aisha Abdullahi Nuur Abdi Maxamuud oo ku darsanaya meeshaan waxaan bari uga direynaa ugaaskeeni ugaas Cabdiraxmaan waxaan leenahay ilaahay xilka aad qabatay ha kaaga dhigo mid sahlan mid ummadda islaamka ma sha Allah mas'uuliyadiina uu saaray aad soo baxdid waan kugu ducaynaynaa waan kugu hambalyeynaa waka anagoo Canada Edmonton joogna.